السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning Tianshi, good morning millionaire, good morning millionaires, good morning Tianis. En baan bi salaamaya inshallah waa Zainab Maxamed Xandulle oo tababarihiina idin doono tababarkan caawa. Tababarkan aan qaadanayna waxa loo yaqaan waa Tianis calcium ama productyada kamid ah shirkaddan soo saarto calcium sadarkisan waxa uu yahay halka sawirro badan baa ku yaala calcium ka shirkaddu ay soo saartaa waxay u qaybsamaan 4 nooc waa calcium 1 calcium 2 calcium 3 iyo calcium 4 dan waxaan eegi doonaa bal iyagoo isku duuban calcium bida faa'iidada ay jidhka u leedahay insha Allah tababarkeena ku eegi doonaa calcium ta adeegno calcium ku is an essential element calcium 2 waxa weeyaan waa curiye aad u muhiim calcium is an essential element calcium 2 waa curiye aad u muhiim soo kale oo jidhka bini'aadanka aad ugu muhiim calcium soo kale is a source of life nolosheena waxa weeyaan isha kaliya nolosheena waxa weeyaan waa calcium ta hadaba bal waxaan eegi doonaa maanta calcium ta faa'iidada ay leedahay ayaan insha Allah tababarkeena aan ku eegi doonaa calcium faa'iidooyin badan bay jidhka u leedahay waayo calcium waxay ku jirtaa macdanaha ay jidhka u baahan yahay ay calcium ku jirtaa marka waxaan tababarkeena maanta ku eegi doonaa bal calcium ta symptoms of calcium deficiency calaamada lagu garto qofka horta calcium ka yartay qof hadaad doonaysid inaad ogaato calcium ka yartay maxaad ka ogaan kartaa ama sidaad adigu maanta isku ogaan kartaa inay bal calcium ka yartay iyo inay ka yareen fatigue daal baa kamid ah poor appetite ka qofka ka xilma sweating qofka dhidid badan yeesha lack of focus maskaxda qofka aan taagnayn oo qofka diirad wax u saara aan haysan constipation calool istaag diarrhea calool socod insomnia iyo hurdo la'aan qofka habeenku ku dhacdo waa calaamadaha lagu garto in children wax lagu gartaa restlessness ilmaha yar inuu nisan waayo habeenkii dhanooyo eggshavel legs lugihiisa si loogu talagalay aan ku dhalan iyo bone problems dhibaatooyin xagga lafo dhan kaga dhaca on yes dhalinyarta waxa ku dhaca weak result of physical exercise jimicsiga jirkiisa oo hoos u dhaca fatigue daal badan tooth problems dhibaatooyinka problem kaga dhaca ama ilkoosus ka galo daldalooshaman easily affected by cold hargabka oo qofka si degdeg ugu dhaca becoming allergic iyo qofka oo allergic badan yeesha on pregnancy woman hooyada uur kale waxaad ku garanaysaa calaamada inay ka yartahay joint pain lafa xanuun cramp xanuun badan oo jidhka ama jaja badan oo kaya iyo pregnancy blood pressure dhiikar ku dhaca hooyada uur kale ayaa lagu gartaa inay calcium ka yartay elderly dadka waa wax lagu gartaa back pain dhabar xanuun bending of the bone qofka lafta soo qulacsanta diabetes sonkor cardiac problem dhibaatooyinka wadnaha xanuunka cramp xanuun bone fracture lafa qofka dildilaaca iyo blood pressure dhiikar iyo appearance of stone qofka jirkiisa dhagaxa laga helo waad arkaysaa qofka markaan ka yarin calcium waa kan laftiisu waa straight rag iyo dumar baad arkaysaa laakiin qofka markay calcium ka yaraato waad arkaysaa laftiisu maxay sameynaysaa waa bending of the bone elderly-ga waxay ku gadan dadkeena waa wada artay lafo dhan ayaa qalqalaa okay calcium dad faa'iido jirka u leedahay inagina highest element in human body uriyaha ugu sareeyay qofka jirkiisa ku jira 1.5 kg waxa weeyaan waa calcium 99% of calcium is found in our bone and teeth. Ilkeen iyo lafeen ayaa laga helaa 9% calciumka. 1% kala soo harina is found waxa laga helaa in our blood and soft tissue. Dhiigeen iyo nudaha yaryar jirkeena ayaa laga helaa. Our body keeps this balance. Hadaba jirkeenu sanbuu shaqeeyaa. We need 1% from our food. Maalin kasta cuntada aan cunayno haday calcium tibigood arkaysaa dadka say u yaratay xanuunada ku dhacay. waxay maalinta jirkeena u baahan yahay inuu helo 1% oo calcium inuu jirkeena hela ayaa loo baahan yahay aan cuntada ka helo calcium is found in the sperm cell calcium taadaba waxa laga helaa shahwada ragga ama biyaha ragga which gives the sperm cell taasoo siisa shahwada ragga power awood to break the female egg ay ku jabiyaan naalada ama ukunta dumarka ee doonaysa in la falgala ee ilmaha yar ku dhasho waxay xoojisaa marka sperm cellka hadaanu awood lahayn ma jabinayo waad maqashay dadka la oran hebel ma dhalaa ma heblaayo ma dhasho after the sperm cell gets into the egg hadaba sperm cellkaas markuu u tago egga ama naalada u tago wuxuu isticmaalaya calcium kaas markuu naalada hadaba ukunta ay biyuhu ukunta ay galaan waxa bilaabmay wax loo yaqaan vibration ka ama gariirkaasina helps it iyadoo wuxuu ka caawinayaa to start life inay nololi bilaamato so if there is no calcium there is no life hadii calcium jirin ma jirayso nolol hadaba waxaan eegi doonaa benefitka ama faa'iidada ay jirka u leedahay calcium taas waxa weeyaan yaraanshaha calcium hadaba benefitka ay jirka u leedahay insha Allah eegi doonaa
benefitka jidhka u leedahay ama faa'iido jidhka u leedahay waxa weeyaan to have a long life haddii doonaysid nolol dheer oo caafimaad qabta aad yeelato. One of the key points is to do physical exercise. waxyaabaha ugu horeeya lagaaga baahanto waxa weeyaan jidhkeena inaan jimicsi sameyno aan supply jimicsigu wuxuu noqonayaa socod waad ka dhigi kartaa qofkii jimicsiga caadiga sameyn kara oo sameyn kara qofka aan waxba haleelayna uu socod buu sameyn karaa and supply our body with required level of calcium. haddii doonaysid inaad nolol dheer oo caafimaad qabta aad yeelatid waa inaad sameysaa exercise jidhkaagana xaddiga uu u baahay calciumtana aad siisaa. wadnaha maxay turtaa calcium to control the heart beat rhythm garaaca wadnaha ayay controlshaa. It strengthens cardiac muscle soo kale waxay xoojisaa muruqa wadnaha. Nervous system and calcium neerfaha iyo waxa u dhexeeya calciumta. Nervous systemku sends a message waxa u dirtaa message from one part of the body to other qaybta kale u dirtaa through calcium ion iyadoo isticmaalsa curiyaha calcium loo yaqaano. Calcium and muscle calcium iyo muruqa maxaa u dhexeeya calcium to controls waxay controlshaa the construction isku soo ururka and relaxation of every muscle in our body. muruq kasto jidhkeena ku jira waxa xukunta isku soo ururkiisa kala bixiisa waa calciumta. Calcium and reproductive system calciumta iyo waxaan eegi doonaa habdhiska reproductive-ka. Calcium to plays a vital role waxay ka ciyaartaa door muhiim ah in the reproductive system habdhiska dhalmada ayay ka ciyaartaa and prevent waxayna ka hortagtaa birth related problems dhibaatooyinka xagga dhalmada qofka ka yimaada. Skeleton and calcium skeletonka calciumka waxa dhahay calcium to is the strongest way awood of skeletonka uu leeyahay. dosage-ka marka loo qaadanayo waxa weeyaan sachet baa ku jira ama bac weeyaan hal xabo ama laba xabo twice a day ayaa maalintii qaadanaysaa. calcium waxa loo isticmaalaa for adult dadka waaweyn baa isticmaala dhabar xanuunka lugu xanuunka muruqyada waxyaabahaas oo dhan. calcium 2 waa no glucose oo waxa qaata dadka sonkorta qaba. calcium 3 waa for children carruurta loogu talagalay. calcium 4 na brain food baa la yiraahdaa waa cunto maskaxeed oo waxa loogu talagalay dadka neerfo kale ay xanuunaan. caution yaa la siin karay people with heart problem dadka u baahan calcium laakiin wadnuhu xanuunaya in taariikh qaadan better advice to doctors before inay ka hor in dhakhaatiirtooda la tashadaan baa fiican oo ay weydiiyaan haddii calcium u baahan yahay. Thank you very much kaas wuxuu ahaa tababarkeeni calciumka aan maanta aan qaadanay ayuu ahaa insha Allah ina faa'iideyn baan rajeynayaa in aad baad u mahadsantihiin. Better chance better life. Thank you very much.